بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan shirkan jaraa'id maanta u qabanaynaa inaan ka hadalno xaaladda dalka oo runtii jahwareer badan iyo iska daba wareeg badan uu ka jiro shacabka Soomaaliyeedna ay xaq u leeyihiin madaxda talada haysa inay la hadlaan oo ay u sheegaan xogta dhabta ah ee dalka ka jirta iyo xaaladda dalka uu ku sugan yahay jahwareerkaas iyo hubanti la'aanta ka jirta xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalka ayaa nagu bixinaysa in haddii madaxdii dalka laga waayo wax hadal ah iyo dadka shacabka inay la hadlaan aan annagu ka mucaarad ahaan aan dadka la wadaagno xogta dhabta ee dalka ka jirta sida ogtihiin waxaa lagu jiraa xaalad kala guur oo muddaxuleedyadii hay'adaha dastuuriga ee dawladda ay wada gabaabsi ama dhammaad ay yihiin oo baarlamaankii aad ogtihiin oo saldhigga u ahaa ama unuga hay'adaha dastuuriga ahaa oo bisha December ay naga xigto September iyo October iyo November 3 bilood xilligiisa uu dhamaanayo waxaad ogtihiin in bilaha dambe ee ku xiga ilaa February-na tan madaxtooyada ay dhamaanayso waxaad ogtihiin dalka inuusan wax xukuumad lahayn oo xukuumaddii dalka ka jirtay sharci darro ah oo qaanuunka iyo dastuurka khilaafsan iyo siyaasadaba lagu riday jahwareerkaas iyo hubanti la'aanta ayadoo jirto ayay madaxda dawladda waxay ku darsadeen qaasatan madaxweynaha inay shacab ka dhuntaan oo shacabka aan la hor imaanin oo waxba loo sheegin ayaan darro ka weyn ma jirto waxaa intaa dheer in xukuumad lagu magacaabay xilgaarsiin ee sharci darro ah oo madaxweynaha uu magacaabay sharci darrana ah ay dalkii si sharci darro ah uga sii talinayso qodobka 103 ee dastuurka ayaa dhigaya haddii ra'iisul wasaaraha iscasilo ama xilka laga qaado inuu talada asaga sii hayo markii afgambiga xukuumadda lagu sameeyay saa ogtiin isla maalintii ayuu madaxweynaha soo magacaabay kusima ahaan ninka hadda xilka haya taasoo ah sharci darro khilaafsan dastuurka maxay keentay marka xukuumad sharci darro ah oo dalka ka talinaysa waxa ay ku dhaqmayso waxa la yiraahdaa Janan Bob waxa la kala boobayaa hantidii dawladda waxa la kala boobayaa mas'uuliyadii iyo xilalkii dawladda waxa la kala boobayaa manaasibtii iyo garaadii xataa ciidanka ayaa Bob lagu hayaa waxa la dalaacsiiyay in ka badan 200 oo sargaal oo madaxweynaha dalaacsiiyay waxaa la qoray intaasoo diblomaasi oo safaaradaha dibadaha lagu kala qoray waxaa la magacaabay guddiga adeeg garsoorka oo sharci darro ah waxaa la magacaabay guddiga khayraadka iyo batroolka oo dad intooda badan qaraabo iyo ehel ah lagu wada qortay oo si qaraabanimo loo soo xushay waxyaalaha aan la yaabnay waxaa kamid ah in la yiraahdo xubinada qaarkood waxay ka socdaan gobol hebel tusaale ahaan gobolka Banaadir qaraabana waxay leeyihiin qof kamid ah guddoonka baarlamaanka marka waxaa socda waa Janan Bob caadi ah oo hantidii iyo dhaqaalihii yaraa ee dawladdu u yaalay iyo xilalkii ama ha ahaadaan kuwa maamul ama kuwa diblomaasiyadeed ama kuwa ciidan intaba la kala boobayo ayuu dalkii ku sugan yahay madaxweynaha wuxuu go'aansaday inuusan xukuumad dhisin si Janan Bobkaas u sii socdo sida ogtihiin waxa loo madlanaa ama loo balansanaa shirka Dhuusamareeb 15 bisha Dhuusamareeb 3 si loo fashiliyo shirka isaga ah ayaa madaxweynaha wuxuu go'aansaday qorshe oo san xukuumad iyo ra'iisul wasaare midna dhisin si aan loo ogaanin ujeedka uu leeyahay ama qorshaha xukuumaddaas ay ka leedahay arrimaha siyaasadda ee dalka wuxuu fashiliyay Dhuusamareeb 2 markii asaga iyo ra'iisul wasaarihiisii oo fagaarayaasha ka sheegi jiray inuu asaga ka fiican yahay dadkana ugu fiican yahay xukuumaddiisana ra'iisul wasaaraha ka fiican tahay oo si afgambi ah oo qoor jabin ah xilka uga tuuray subax Soomaali iyo adduunba ay ku waabaristeen ujeedka dhan oo laga lahaana wuxuu ahaa in Dhuusamareeb 2 lagu fashiliyo Dhuusamareeb 3na waxa lagu fashilin rabo waxa waaye inaan xukuumadna la magacaabin ra'iisul wasaarana la magacaabin waxa laali wixii ka soo baxana madaxweynaha uu sheegto inuu baarlamaanka ku celinayo
markii yiraahdo baarlamaanka aan ku celinayna xukuumad iyo ra'iisul wasaare gacan ku rumisa inta la magacaabo la yiraahdo mashruuca xukuumadda oo 2 sano ku salaysan oo muddo kororsigii ah baarlamaanka hal isla geeyo saa ogtihiina baarlamaanka xubnihiisa intiisa badan oo guddoonka ugu horeeyo waxay raadinayaan waa muddo kororsi doorashada dadban ay ku celcelinayaan doorashada waxaan rabnaa qof iyo cod ay leeyihiin qof kasta oo Soomaaliya saqiir kabiir oo ogtahay inay tahay muddo kororsi inay doonayaan waxa la doonayaa marka wixii uu Soomaaliya ka soo baxay inta la iska dhigo hadii ba la isku tago la ansixiyo mashruuca xukuumadda ama qorshaha xukuumadda ee 2 sano ah saas daraadeed waxaan leenahay Soomaaliya si u dhacdo madaxweynaha waxa laga rabaa xukuumad asagu waa madaxweyne oo maalmeelka fulinta iyo qorshaha doorashada ee lagu soo heshiiyay asaga fulinteeda shaqo kuma laha laanta fulinta xukuumadda oo xil saaran madaxweyne waxaan leenahay magacaaw ra'iisul wasaare dhis xukuumad hogaamisa xilli kala guurka ah ma dhici karto xukuumad la'aan in xilli kala guur laga wada hadlo su'aasha waxay tahay yaa fulinayo waxa lagu wada hadlay ma xukuumad sharci darro ah oo tuugaysi iyo dastuur aan ku dhisnayn iyo dadka Soomaaliyeed ku aaminayaan xilli kala guurka waa maya saas daraadeed madaxweynaha waxaan ka dalbanaynaa inuu dhiso xukuumad magacaabo ra'iisul wasaare ra'iisul waxaan ka rabnaa inuu san noqonin ra'iisul wasaare ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha ee uu noqdo ra'iisul wasaare matalaad ku taagan dadkana u dhaxeeya mas'uuliyadiisana guta xilli kala guurka ahna si nabad ah dalka uga bixiya dhibaatada iyo mugdiga oo ku jiro waxaan rabnaa ra'iisul wasaare jidadka xiran ee dadka ay ku dhibtoodeen dhagxaanta ka qaada magaalada Muqdisho waad ogtihiin dhagxaanta awal dadka celi jireen hadda biyihii inta celiyeen yaa dadkii iyo biyihii isku meel isugu imaadeen oo meel ay wada maraan ay laayihiin dadkii iyo biyihiiba waxaan rabnaa ra'iisul wasaare dhagxaanta jidka ka qaada waxaan rabnaa ra'iisul wasaare taliska nabad sugidda tilaab ka qaada taliska nabad sugidda wuxuu noqday xarun fasahaadsan oo shabaab iyo ayada aan la kala garanaynin saa ogtihiin maalin dhaweed ciidan ayaa la weeraray xaruntan lagu weeraray xisbiga waa la qariyay warbaahintii haatiina cid inii sheegtay ma jirto waxa ka ogtiina jira maya waa la qariyay xalay shabaab ayaa hub loo geliyay salagii dhexe ee dawladda si loo fakiyo dad shabaab meesha ku jira ujeedo kale ma ahayn waxba yaan xabsiga dadka madaxda ka ay mas'uuliyiintiisa lagu marsiyoonin waa qorshe taliska nabad sugidda ka socda waxaan kala garlaanahay taliska nabad sugidda inuu yahay shabaab iyo inuu yahay talis Soomaali u shaqeeya waa la kala garlaaya ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono hadduu rabo kalsoonida dadka iyo dadka inay aaminaan waa inuu taliska nabad sugidda wax ka qabtaa hoggaankeeda gaar ahaan oo ayaga iyo shabaabkii la kala aqoon waayay waxaan rabnaa ra'iisul wasaare fuliya heshiisyadii Soomaaliya 1 iyo 2 saddexna ka gugaara oo kamira dhaliya rabnaa oo dalka si nabad ah transitionka ku dhaafiya xilliga kala guurka ah waxaad ogtihiin dadka Soomaaliyeed ogyihiin in baaqi isdaba joog ay soo baxayaan oo maamul goboleedka ka imaanayaan oo xisbiyada siyaasadda ka imaanayaan oo bulshada rayidka iyo dadka wax garadka ay ka imaanayaan dheer garadka oo ay qabaa'ishii ka imaanayaan qaasatan kuwii magaaladan xooggeeda deganaa intaas oo dhan madaxweynaha wuxuu ku talagalay iyo taliskiisa nabad sugidaba inay dhagaha ka fureystaan suuragal ma aha waxaan ka digaynaa xaaladda dalka waan ka warqabnaa idinkana waa ogtihiin warbaahinta dadka Soomaaliyeed magaaladan ku nool ogyihiin waxaa la yiraahdaa xaaladdan oo kale xaalad kacsanaan ah xaalad deganaan la'aan lagu jiraa waxaana keenaya hubanti la'aanta masiirka dalka la geliyay iyo halka loo socdo ayaa keenaya saas daraadeed waxaa dhici kara qarax yar oo magaaladan ka dhaca kama wada qaraxi al-shabaab iyo argixisada laakiin wax yar oo wax qarxiya ama trigger wax la yiraahdo inay dhibaato weyn dalkan ay ka dhaliyaan maadaama ay dadkii abursanaan iyo caro iyo maaragtay tabasho ay isku darsantay masiirka dalkoodina mugdi la geliyay meel loo socdaan aan la aqoonin hubanti la'aanta sideedaba siyaasadeed waa u daran tahay wadamada nugul ee fragility-ga ah ee ka soo kabanay colaadaha aad ay u daran tahay waxaa la rabaa wadamada fragile states ka la yiraahdo ama xaaladaha nugul ama xaaladaha jilicsan ku jiraaho waxay u baahan yihiin inay hubanti ku socdaan kuma soco karaan hubanti la'aan saas daraadeed waxaan ku baaqaynaa in shirarka ka socda magaalada la ballaariyo
oo dadka deegaankan dhan loo waasiciyo si dadka siyaasiyiinta aqoon-yahanka waxgaradka odayaasha deegaankana si nabad ah oo aysan subax fidno korkooda ka kor dhicin oo aysan waaga ugu baryin inay dalkan dhibaato ka dhacdo oo si nabadeed ah inay isku dhaafiyaan taliskan xilligiisa dhammaaday muddo kororsigana raba saldhiggan ay u yihiin guddoonka baarlamaanka madaxweynaha iyo taliska nabad sugidda oo aanay cid kale doonayn dheg inay jalaq u siiyaan oo aan tala maqlaynin oo ismahdiyey oo u haysta dalka inay ayaga awood iyo xoog ay ku qabsan karaan wadajirkaas ayaa loo gudbi karaa dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka intiisa kale ku noolna iyo madaxda iyo mas'uuliyiintana arrintaas in lagu gacan siiyo dadka reer Muqdisho inay ayaga iska dulqaadaan dadkaas dulmiga iyo dhibaatada ku haya ayaan ku baaqaynaa waa maasantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.